martisharafta mas'uuliyiinta dhammaan waxa aad muddo kulley in aad muddo lagu raagay fadhiga laakiin kulley hawsha loo joogay meesha iyo muhiimadda loo yimi iyo adkaysanka dadku ay bixiyeen waxa moodaa inay tahay waxa ugu horeeya oo la qofku uu huraa inay tahay waqtigiisa marka aad bay ugu mahadsan yihiin dadweyne ka soo qayb galay dhageysiga iyo dulqaadka iyo muddada la fadhiyay runtii waxaan u maleynayaa hadal badan ba halka laga jeediyay dadkuna way daalan yihiin oo waxa weeye waqti baa la fadhiyay aan yarayn hadal badani ma jiro anigu hadda siyaasaddan dowladda dhexe waa ku cusbahay waxaan u maleynayaa 17 bisha abril ayaa si toos ah uga mid noqday xubnaha waa muddo kooban waxaan filayaa inaanay weli bil gaadhin laakiin meesha laga hadlayo barana iyada de waqti badan iyo xog badan iyo howlaheeda aad baan ugu warayaa oo nin mas-uul hadda meel ka yimi oo loo warramayo ma ihi barmood baan ahay intii xoogayga amaan xoogga lahaa waqtigeedii waxaan geliyey magaaladan baan joogay ama fikir ha noqoto ama shaqo ha noqoto ama howlgal ha noqoto marka haddaan meel kala tagana waxaan jeclahay inaan waqti badan geliyo horumarkeeda iyo inay noqoto magaalo iyo gobol runtii matalaadda xildhibaanadu sidoodaba shaqadoodu waa matalaad weye iyo inay la xisaabtamaan oo dabagalaan dowladda hay-adaha dowladda iyo inay xeerar iyo curiyaan waxaan ku raadahay xeer hoosaada ama xeerar lagu shaqeeyo saddexdaa qodob baa shaqadooda inta badan ay u qaybsan tahay marka matalaadii ay degmadeedii ugu lahayd ama gobolkayga ugu lahaa ama bulshada puntland oo hadda dee marka la yidhaahdo mas-uuliyad qofku wasiir noqdo ama xildhibaan noqdo mas-uuliyaddu way ballaarantay laakiin gobol buu matalayaa kulle ka soo galay iyadoo waxaan jeclahay inaan sidii awalba anigoo aan xil hayn aan ugu faydnaa in aan xilkaas ii siyaadayna insha allah uu ii siyaadiyo shaqo iyo in dadkan gobolku waxa ay tabayaan aan insha allah mar walba ku mashquulsanaano sidii ay uga bixi lahaayeen xagga soomaaliya kulle waan ognahay burbur baa ka dhacay kasoo kabashaa jirta oo Soomaaliya dawladeedii markay dhacday de waxay noqotay sida loo kala yaacay nin walba meeshuu tagay inuu meeshiisii dhisto maamulada la dhisay waa la wada dhistay waa lagu heshiiyey dastuuraa la samaystay waxaan ku yiraahdaa nidaam dawladeed baa la sameeyey degmada tan hadda laga sheekaynayo wax badan kama dhaxalin dawladii oo waxa hadda laga hadlayo magaalooyinka kale way dhaxleen waxa laga yaabaa magaalooyin waaweyn oo Soomaaliya ku yaala hadda in jeelasha lagu shaqeynaya kuwa dawladii hore yihiin ama guryaha la degan yahay kuwa dawladii yihiin marka inagu xajmiga magaalada uu kordhay deewaagay iska magaalo yar bay ahayd oo saldhig yar oo dawladdu ay leedahay jiray oo halka ku yaalay waxay u baahatay marka in xajmigeeda iyo kororka magaalada ku dhacaya dee lala saan qaado taasoo waxay keentay in laga guuro meelihii hore waan wada garanaynaa reer baramoodku meelihii saldhigyadu ahaan jireen dawladihii hoose waxa marka ballaarintaas marka waxay keenaysaa kulli culays iyo hawl in wax u diyaarsanaayeen oo dawladii wax uga dhacday ama dawladii wax uga tagtayna dee la mid noqon mayno magaalooyin caasimada oo saldhigyadoodii iyo jeelashoodii iyo maamulkoodii waxoodu dhisan yahay taa marka intaa inaan ku baraarugno weeye oo weli kasoo kabashaynu ku jirnaa arrinta innaga markaan halka isugu nimaadno kolley hadda fadhiyadan aynu gallay oo kale wax fiican baa ka soo baxay waxbaa markii hore la ballan qaaday howlaa la qaybsaday lacagaa la bixinayaa waxbaa la tala bixi waa shir fiican oo runtii dee hadduu walaahow iskaga dhammaan lahaa ama meesha inta laisugu yimaado hadal uunu ahaan lahaa waqti bayna ka lumi lahaa laakiin hadda waqtigeennii waxaynu gelinay in lagu dhammaystirayo shaqooyin hore la qabtay wixii lagu ballamay meeshay marayeen in la kala warqaato in wixii toosina iyo wixii maaragtay tashi ah la siiyo hal mid baan marka aanu laakiin tilmaamaya dawladuhu
ama maamul kastoo meel ka jira waxa weeye dad xukuumadda jooga bay leeyihiin baarlamaanka oo kale saan sheegay iyagu shaqadoodu waa shaqo fulneed maaha xukuumaddu waa dad kooban sidii laga hadlayay hadda bulshada iyo dowladda waxaa lagu matalaa xukuumadda dadka ka shaqaynaya doon bad saaran waxa ay dul saaran yihiin waa bulshadoodii doontan iyo baddan marka kuma saamayn badan ma doontaa badda saamaysa mise baddaa doonta saamaysa hadday badda kugu kacdo doontaadu see noqonaysa waxa weeye istiqraar baa loo baahan yahay istiqraar siyaasiya baa loo baahan yahay waxba lama qaban karo markaan run isu sheegno meelaan istiqraar siyaasiya ka jirin horumarka ma socon karo waxaan u baahannahay deganaan siyaasadeed dhaliisha iyo toosintu waxay leedahay dariiqyo loo samaystay oo caalamka hore u maray u samaystay dadku inay xisbiya samaystaan xisbigan lagu leeyahay waa mucaarad dowladda waxbay ka midaysan yihiin laakiin wixii ay ka leexday oo qorshe ahaa bay ku dhaliilaysa waxaase ahayd in la qabto dowladdu ma qaban waxaase ahayd in la sameeyo waa looga fursan waayo laakiin haddaynaan isku orbitba marayn haddaynaan itijaaheena siyaasi ah u iskhilaafo miyaynu sixi karnaa isma sixi karno waa inaynu horta ka midaysannahay itijaaha siyaasiga mandaqadanahay itijaaha siyaasiga oo kala duwan wuxuu keenayaa inaynu issixi weyno inaynu isdhegaysan weyno xitaa laakiin markaynu itijaaha siyaasiga iyo mabaadi siyaasiga iyo wax aynu ku midaysannahay jiraan isixitaanku waa wixii loogu talagalay dadku inay ku wada noolaadaan oo qof bannaanka ka eegaya ciyaarta uu jiro oo oranaya halkaas waxbaa laga khalday qorshihii dowladdu saasuu ahaa waxyaabaha ma qaban waxyaabihii lagu talagalay sanadka in la qabto ma qabsoomin laakiin waa markaynu siyaasadeenna iyo saqafkeenna mabda'iga ahay uu isku mid yahay laakiin marka ay tahay khilaafaad sistamka iyo mabaadi'da iyo siyaasadda dowladnimo ku saabsan ay jiraan dayaa is dhegaysanaya marka waxa weeye waa inaan horta qirnaa inaynu wax wada leenahay nidaam siyaasiya iyo dowladnimo naga dhexaysa ayna jirto midna markaa uu kursiga ku fadhiyo mid bannaanka ka saxayo mucaaradana la helo haddana puntland waxaan leeyahay xisbiyay samaysay oo waxyaabaha sahli kara weeye qofku hadduu xisbi ka mid yahay dee wuu hadli karaa oo xisbiga uu ka mid yahay ama ururka uu ka mid yahay baa u sahlaya inuu dhaliil jeediyo sharciyad buu leeyahay marka waxyaabaha qaybtoodna aan iska ilaalino anigu waan oran lahaa dowladnimadu hadda amniga laga hadlay meelo badan baa la taataabtay laakiin dowladnimada aynu doonaynaa waxaa lagu matalaa nin maalin wuxuu weydiiyey magaalo ka mida magaalooyinka Soomaaliya inay Hargeysa ahayd baan u malaynaya waagii la soo galay Soomaaliya la soo noqdo jabhadooyo dee aan waxba dhisnayn baa meel muqaayada la isugu yimi markaasuu wuxuu yidhi waxaan filayaa ninka weydiinaya inuu ahaa nin wariye ah ninka la weydiinaya nin abwaan u ahaa gaariya nin la oran jiray amni xumadan Hargeysa ka waran buu yidhi malaa marxaladaha qaybtood bay marayeen amni xumadan iyo rasaastan iyo markaa ka jirtay meesha marka wuxuu yidhi waxa fiicnaan lahayd su'aashaada inaad kuu saxo oo aad weydiisid dowladnimada ka jirta waddankeena ka waran waayo amnigu wuxuu noqonayaa taayir ka mira gaariga dowladnimada taayirku hadduu halkaa yaallo dicid ma qaado oo ma istaarmo oo ma socdo oo lagama faa'iido laguma intifaaco dowladnimadu marka waa gaari amnigu meel buu noqonayaa caafimaadka arrimaha bulshada maxaanku siyaasadda mabaadida ay ku dhisan tahay waxaas waxa weeye waa hal gaari oo isku xidhan mana noqonayso suuragalna ma aha in la yidhaahdo dowladnimada dhaliisha ka jirta waxaa leh hebel iyo hebel ama ciddaa oo keliya dowladnimadu way ka ballaaran tahay wax xukuumad keliya ay qaadi karto bulshadaana qayb ka ah weyn hirgelinteeda ixtiraamkeeda garabgalkeeda qayb bay ka tahay qofkan meesha la keenayo oo maamulka iyo dowladnimada hoggaanka u ahna waxbaa laga rabaa barnaamij baa laga rabaa qorshaa laga rabaa marka waxaynu u baahannahay inaynu dowladnimo ka hadalno amnigu priority ha yeesho laakiin dowladdii oo dhan maaha dowladdii oo dhan ma noqon karo waa qayb ka mid ah oo haddaan sistamkii dowladnimo la helin ma soconayso amnigii ma soconayo innagu inaynu aqbalno dowladnimadii inaynu inagu garab istaagno inaynu wax ku danaysanaynaa waa service dowladnimadu iyo waxay noo qabanaysaa shaqooyin badane aynu ilaalinno inaynaan wareerin oo dawakhin oo marba meel isku qaadane aynu wax dhinac u jeensanno ilaa haddaynu xaggaa u jeensanno qaybna xaggaa u jeensato qaybna xaggaa aado
waxa weeye kala tag nabadde maxaa markaa aynu qaban karnaa marka asaaska dowladnimada waxa weeye inaynu meel u wada jeedno oo u soconno inaynu ku xaqiijino masaalixdeena system iyo nidaam iyo dowladnimo haddii dowladnimadu ay gaab keento oo meesha ka baxdana carabtu waxay lahaan jireen xigmad ah تنتهي القبيلة من حيث تبدأ القبيلة من حيث تنتهي الدولة meesha ay ka baxdo dowladnimadu ama ay ka laabanto ma barnaanaanayso vacuum noqon mayso waxay noqonaysaa markaa qabiil baa soo galaya system qabiiliya baa soo galaya ama system kale dadka qabaa'ilka aaminsan qabiil baa soo galaya inagu waxa weeye hadda markii dowladda naga burburtay dee waxa aynu wax ku dhisanay waxay ahayd nidaamkii kale oo markii dowladnimadu aanay noo iman aynu ku noolayna marka markasta oo jileecu ka jiro dowladnimadeenna waxa soo gelaya halkaas nidaamkii qabaliga ahaa oo aan faa'iido lahayn runtii oo lagu daalay oo lagu burburay dadkana ama nin aqoon-yahan ha noqdo ama nin siyaasi ha noqdeen aragtidoodii runtii xadidaya aragtidii ballaadhnayd oo la rabay in la qaato ama sidii uu rabay wax loo wada qabsado xadidaya marka insha allahu waxaan ku soo gabagabeynayaa kulley arrimahan hadda laga hadlay horumarinta gobolka ah dee golayaal baynu leenahay oo golayaal inoo jooga dowladda dhexe ama ha noqdeen wasiiro ama xildhibaan ha noqdeen halkan markii hawsha laga abaabulayay kolley maaqaanta in wasiirro joogeen iyo inay xildhibaanna joogeen waxayba ku fiicnayd inay halkan ka qaadaan talo u geeyaan golayaasha si uga qayb qaataan iyagu si gaara ama gobol ahaan xildhibaanada iyo wasiiradu horumarkan hadda la tilmaamayo maaqaan mid ay ku badinayso inaan kolley ilaa xildhibaano 9 haddaba jooga inkastoo aan ku cusbahay inay ku badinayso in halkaa wax laga soo abaabulo iyo inay nafsi ku badinayso anuu hadda wixii aan yaboohi karo aan yabooho laakiin waa isku wadaynaa yaboohana waa ku daraynaa insha allah odayaasha xagga joogana anigoo ka faa'iidaysanaya inaan ku cusbahay bal inay ila qaataan hawshaas waa u geynayaa gaar ahaan xildhibaanada waa mashruuc runtii khayri ah oo ummaddu ay horumar u ah qofku wax ku darsada arrinta waddada daahirna waxaan maleeyaa aad baa looga hadlay laakiin hadda ninkii maray oo intan yaroo 17 kiilo maray wuxuu dareemayaa ajar badan inuu ka maqan yahay bini'aadankana wax lagu dhiirigeliyo ama uu wax ku bixiyo wax u fiican inuu qofku ilaahay dartii iyo aakhiradiisa iyo wax isaga meel u yaalla uu ka fikiro ama ajar ka fikiro haddii marka taa uu fahmi waayana dee markuu dul maro meeshii oo arko sida ay ugu hagaagsan tahay inuu danahiisa isagu leeyahay iyo dareenkiisa shakhsiyadeed uu ku fikiro marka waddadaas runtii qiimo weyn bay u leedahay ummadda meel fiicanna way maraysaa wayna dhammaanaysaa mashruucan maaha mashruuc bil iyo sanad iyo laba mashruuc cumriga bini'aadanka marmar la fuliyo dee waddada hadda dowladda Soomaaliya ay samaysay intee lagu intifaacay marka waa mashruuc la rabo qofka cumrigii markuu soo marayo oo in laga faa'iidaysto u baahan oo qofkii wax ku darsan karaa qofkii dhiirigelin karaa qofkii maaragtay marka insha Allah isagana odayaasha hadda hawsha ku jiraana waxaan filayaa inay joogaan meel fiican oo ay dhiirigelin ku qaadan karaan maadaama hadda cawsane la hayo ayna waddadu laamiyada ugu fiican tahay hadda standard ahaan waxaan u maleynayaa wax badan la qabtay oo uma iska dhammaan doonaa bulshadana kolley tusaale waxa ugu filan mashruucu hadda sida uu yahay iyo meesha uu marayo iyo waxa meesha laga soo kaxeeyey inaan laga hadhin insha allahu nin walba ugu tartamo marka insha allah barnaamijkan jeelkana 100 sibir baan shakhsiyan anigu ballan qaadayaa odayaashana xagga iga horeeyo xildhibaanadana waagi waxaan leeyahay Axmed Kuuc baa joogay markii hawsha la asaasayso waxay tahay isaguna warka isku biiray warka kalena qolada kalena isku biirinayna warkooda isaga iga horeeyo insha allah mar duutii hore ka qayb galay marka insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo hawlaheena waxaan ilaahay ka baryaynaa isku duubni iyo wax wada qabsi iyo horumar iyo maxaan ku raahdaayay nabadgelyo
iyo waddankeena iyo deegaankeena iyo dadkeena ba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ka dhigo dad wanaagsan oo horumarka u taagan dadka wax qabtay waa u ducaynaynaa Ilaahay khayr ha siiyo Ilaahay ha ka aqbalo Ilaahay ha ku badbaadiyo adduunka iyo aakhiradaba inta wax bixisay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka aqbalo oo qurbaanta iyo maxaan ku raahdaayay waxa la bixiyo waa hadii la aqbalo way marka Ilaahay khaalis ka dhigo wajhil kariim Ilaahay na ka aqbalo barnaamijkaas hadda la wado oo jeelkana insha Allah waa ku filanahay sida rag hore sheegeen waxa deer dadka lagu qeyliyo maaha waa ku filanahay aan isu taagno waxaan aad u tilmaamayaa maayarka iyo maayarka xigeenka waa joogaan qolada hawsha inta badan laga rabo waa golaha deegaanka degmada baran xaafaday leedahay population baa ku nool meherada ay leedahay shaqo badan qabataan baa la rabaa in xaafadaha isu qaybisaan taanu systemkan oo weyn waagi wuxuu ahaa gudiya xaafadeed iyo golayaal deegaan oo wada shaqeeya oo xubin kasta oo golaha deegaanka mid ah labadii xubnood ba xaafada ay degan yihiin si gaar ah iyo gudidooda ay u wada shaqeeyaan fariisin badan baan ka sameynay wadada lacaga waagi loo sameeyay loo ururiyay xoolo badan baa loo ururiyay hadda tuulo baan arkay ana badan ma yahay tuulooyinku xoolo fara badan bay ku bixiyeen waagi wadada ari u badan dadku shaqay waa bixinayaan marka loo geeyo dad khayr badan baa ku jira marka goloweynuhu deegaanku arinta ka tashadeen ha ka howlgaleen hala shaqo geliyo xubnaha golaha deegaanka waa inay ka shaqeeyaan xaafadaha waa inay tuulooyinka ay matalayaan ila matalaadu marba meel bay joogtaa ninka baran golaha deegaanka ah wuxuu matalayaa sidaan ku soo dhisnay tuulooyin iyo deegaamo iyo dad matalaya waa inay shaqo galaan oo ay hawsha jeelka ka shaqo galaan tuulooyinkuna dadka ka faa'iideysanaya kamid yihiin jeelka baranimo leh gobolka dhan baa leh waa mustawal محافظة أما قبل كأيو وأديجيا آد بانين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم بارسي وهرمرتي هدف